كبر تاريخ ذا نبي يوسف عليه السلام. نبي يوسف عليه السلام مجعيسو ويوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام ويديس وراحيل بنت لابان وحكود الشيء عراق وحالنا الشيء كوبية بنويل. نبي يعقوب عليه السلام عرورتيسا وحوش على يوسف عليه السلام ولا ليه مركا ويكما صيرين جعيلك أبوهد وجعليها يوسف كلية وجعيلك انت لاقيك أوسن جعلين أي كما صيرين العقدد أي كوغشي مالين مالمها كمد أي نبي يوسف عليه السلام سوى دأدي سؤاد أي يرتهي أو 10 سنة جرا أيو أبي سويمد وحكير أبا وحن كريوضي كوب 10 حديقود ضيحة يقرحضة أو يسجودية ودرامي إن ويلكيسا أمر وين ويالن دونه marka uu weynaado markaasuu la dardaarmay wuxuu ku yiri wiilkaygiiyow riyadaada ha uga sheekaynin walaalaha waxa laga yaabaa shaydaanku inuu waswaasiyo oo ay dib ku maleegaan laakiin nabi yuusuf walaalihiis already waxay qorsheynayeen oo dejinayeen qorshihii iyo plaankii ay kaga takhalusi lahaayeen nabi yuusuf alayhi salaam tay isku yimaadeen oo shireen ayay waxay yiraahdeen war yuusuf see meesha uga saarnaa si aabihiin oo idinka idin jeclaado oo idinka uu idinkugu soo faaruqo badankoodu waxay dhaheen yuusuf aan dilno oo aan ka takhalusno mid ka mid ah oo naxariista walaaltinimo wali qalbigiisa ay ku sii jirto ayaa wuxuu yiri yuusuf dilina ee intaan qaadno aan ceel ku soo ridno meel cidla ah si hadhow dadka safarka ah ee meesha maraya ay u sii qaataan oo ay saan ugu dhaafiyaan taladaas ayay isku raaceen oo ku heshiiyeen oo go'aankeeda sidii ay ku fulin lahaayeenna qorshihiisii ay galeen nabi yuusuf alayhi salaam walaalihiis markii ay heshiiyeen oo go'aankoodii ahaa inay ka takhalusaan ay qaateen ayay waxay u yimaadeen aabahood nabi yacquub alayhi salaam waxay ku yiraahdeen aabbo maanta waxaan rabnaa yuusuf inaad nagu dirtid oo uu nala soo ciyaaro oo waqti uu nala soo qaato nabi yacquub alayhi salaam wuxuu daransanaa xasadka iyo xaqdiga walaalkood ay u hayaan wuxuu damcay inuu u diido oo uu ka hor istaago wuxuu yiri waxaan ka baqayaa inaad ka mashquushaan oo kadibna waraabuhu uu cuno markaas waxay yiraahdeen ma anagoo inta la eeg oo tiradeenu inta tahay ayaa walaalkeen waraabo cuni kara ku celcelin badan kadib nabi yacquub alayhi salaam uu ogolaaday in uu yuusuf raaciyo oo ay ka haystaan